السلام عليكم ورحمة الله isku soo noqod wanaagsan muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa wax kasta oo markaasi ku saabsan iskuulka cusub ee aan markaasi furay ee lagu magacaabo Xirfad Academy. haddii aan wax yar ka idhaahdo sababtaan iskuulkan u furay intaan u guda gelin markaasi muuqaalkan run ahaantii waxay ahayd fikrad aan ku fikirayay in muddo ah oo hadda gaadhaysa 4-5 sannadood oo mar walba aan islahaa markaasi fur iskuul dadku ay markaasi ka faa'iideysan karaan oo ay ka baran karaan markaas xirfado muhiim ah oo uu qofku ku heli karo markaasi shaqooyin si dhib yar ah. xirfadahaas oo laga yaabo inaan markaasi si toos ah uga helin jaamacadaha haddii ay ahaan lahayd markaasi kuwa wadankii ama markaas faculty aad akhrinayso kale wax laga yaabaa xirfado gaar ah inay yihiin oo laga yaabo inay yara adagtay inaad markaasi si dhib yar ku heshid. marka in muddo ah ayaan ku fikirayay oo aan islahaa samee anigoo markaasi eegay inaan u heli karo waqti sababta waxay u baahan tahay waqti fara badan in la diyaariyo markaasi koorsooyin oo markaasi si fiican looga soo shaqeeyay dadkuna ay markaasi u fahmi karaan si dhib yar. waxa kale u baahan tahay markaasi resources sidoo kale inaad haysatid dad markaasi aad isleedahay way qaadanayaan koorsiyadii. markaan intaasoo dhan isku eegay oo intaa muddaba aan ka fikirayay muddada intaa leeg baan ka fikirayay in saddexdaa shay ay suurtagal tahay in la helo ugu dambeyn waxaa suurta gashay markaasi inaan furo oo aan muxuu ahaa launch gareeyo iskuulkan la yidhahdo markaasi Xirfad Academy. okay intaana hadalka sii badin muuqaalkan waxaan u kala qaybin doonaa 3 section si ay markaasi kuugu fududaato haddii aad doonaysid inaad isdhaafisid qaybaha qaar. qaybta koobaad waxaan kaga hadli doonaa iskuulkan ama academigan iyo waxyaabaha markaasi lagu baran doono iyo waxa uu ku saabsan yahay. halka qaybta labaad aan kaga hadli doono kooraska ugu horeeya ee aan markaasi ku bilaabayo oo ah markaasi kooras la xiriira coding iyo programmingka oo waxaan ka bilaabi doonaa markaasi JavaScript. sectionkan waxaan kaga hadli doonaa markaasi kooraska aan dhiganayno ee JavaScript curriculumkiisa inta uu soconayo waxyaabaha ku guda jira iyo qaabka markaasi ay ardaydu u qaadanayaan muxuu ahaa curriculumka. halka qaybta saddexaad ee ugu dambeysa aan kaga hadli doono sida uu qofku markaasi isku diiwaan gelinayo kooraskaas ama koorasyada kale ee soo socda ee aan markaasi soo gelin doono iskuulkan. sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa feega iyo ardayda qaar aan markaasi u samayn doono scholarship oo dadkii aan awoodeyn markaasi inay markaasi feega iska bixiyaan waxaan u samayn doonaa markaasi inaan ku siiyo bilaash waana tiro xadidan. markaas aynu u gudagalno markaas muuqaalka oo dhammaystiran. haddaan wax yar ka sheega markaasi ama macluumaad yar ka sheego iskuulkan iyo waxa uu ku saabsan yahay. iskuulkan Xirfad Academy waxa uu noqon doonaa markaasi iskuul online ah oo ay dadku markaasi ku dhigtaan waxyaabaha ku guda jira qaab distance ah. koorasyada halkan ka bixi doono waxaa ka mid ah markaasi koorasyada programmingka sida web development, data science, muxuu ahaa video editing, design, photoshop. waxyaabahaas oo dhan ayaa markaasi lagu dhigan doonaa walowba hadda aan ku bilaabay keliyata inuu lagu dhigto muxuu ahaa JavaScript ama programmingka sababtoo ah hadda waqti uma hayo oo resources ku filan ma haysto inaan waxaasoo kooras hal mar wada duubo ama hal mar wada sameeyo. marka talada igu jirtaa in muxuu ahaa aan mustaqbalka dhow kusoo kordhiyo markaasi koorsooyinka mana noqon doonto muxuu ahaa in anigu aan ahaado instructorka keliyata ee markaasi soo geliya koorasyada waxaan isku dayi doonaa markaasi inaan keeno macallimiin markaasi professional ah oo si fiican u dhigi karaya markaasi maadada ay ku takhasuseen. marka waxyaabo badan ayaa markaasi aan rajaynayaa inaan muxuu ahaa ku sameeyo ama aan soo geliyo markaasi iskuulkan oo ay markaasi dadku ka faa'iideystaan oo ay wax ka dhigtaan. laakiin hadda waxaan ku bilaabay course markaasi la yidhaahdo JavaScript from zero to hero
oo qofku uu ku baran doono markaasi luqadda programmingka ee JavaScript. haddaan intaa kaga tago aan u gala markaas sectionka labaad oo ah macluumaadka ku saabsan markaas course-kan ugu horeeya ee JavaScript, maadaama aad su-aalo badan qabteen, su-aalo badan iisoo dirayseen, walowba aan waxyaabo badan ku sharaxay ama ku sheegay qaybta community-ga ama Discord-ka haddii aad markaasi ku jirtid oo aad member ka tahay serverkeena Discord. laakiin waxaa laga yaaba waxaas dhan in aanad arkin oo dad badan ayaa markaasi su-aalo badan iisoo dirayay, waxayna ila noqotay markaasi inaan muuqaal ka sameeyo si ay u fududaato markaas oo anigiina markaas aan waqti badan iga lumin, oo 10 qof marka aad u jawaabtid haddana 10 kale ay kusoo weydiiyaan oo isla su-aashii aad ka jawaabtid waxoogaa wax yara noqonaysaa markaa yara dhibaato yara noqonaysaa qofkii ku noqonaysaa aniga ahaan. sidoo kale waxaa laga yaabaa adigana inaan markaas si fiican kugu jawaabin, walowba aan isku dayo inaan markasta sida ugu fiican oo ugu faahfaahsan markaasi aan u jawaabo. course-kani gebi ahaanba waxa uu ku saabsanaan doonaa markaasi programmingka, gaar ahaan luqadda JavaScript. uma baahna markaasi qofku inuu aqoon hore u leeyahay programmingka, sababtoo ah waxaan ka bilaabi doonaa basics to markaasi advanced, iyadoo markaasi aan ku dhigan doono casharo tiro badan. course-kani waxa uu noqon doonaa mid pure JavaScript ah oo wax frameworkisa kuma dhigan doono sida React ama Angular ama Vue. waxaynu dhigan doonaa luqadda programmingka ee JavaScript, vanilla JavaScript. waxyaabaha aan ku fargarayn doono waxaa ka mid ah JavaScript fundamentals ama programming fundamentals in general, sida muxuu ahaa numberska, stringska, variableska, data typeska sida arrayska, objectska, functionska, dateska iyo waxyaabaha la midka. waxyaabaha kale aan ku fargarayn doono waxaa ka mid ah conditionalska, if muxuu ahaye else, switcheska iyo sida u shaqeeyaan, loopska, template literals, object literals. sidoo kale waxyaabaha aynu ku dhigan doono waxaa ka mid ah ECMAScript 6 ama ES6 oo ah markaasi JavaScript version cusub markaas. sidoo kale waxa aan markaasi dhigan doonaa document object notation ama waxa lagu magacaabo DOM, inagoo markaasi baran doona sida loo manipulate gareeyo DOM-ka adigoon isticmaalayn markaas wax framework sida jQuery iyo waxyaabaha la midka. marka wax kasta oo framework meel baan iska dhigi doonaa si aan markaasi u fahano fundamentalska markaasi luqadan iyo guud ahaan markaas programmingkaba, si aad adigu hadhow toole markaas awood ugu yeelan karto inaad hadhow toole fahantid siday u shaqeeyaan, sababtoo waxaad baratay basekii ama waxaad ka dhismaysaa markaasi baseka. hadhow toole waxaad si fudud markaasi u adapt garayn doontaa ama aad u fahmi doontaa qaabka ay u shaqeeyaan markaa frameworksku. badanka waxay dadku sameeyaan waxay ka boodaan markaasi vanilla JavaScript inay si markaasi pure u bartaan oo waxay markaasi si degdeg ugu boodaan frameworkska, waana waxyaabaha keentay in qofku ku adkaato ama ay markaasi waqti dheer ku qaadato inuu dhiso markaas real world applications markaasi si fiican u shaqeynaya oo markaasi advanced ah. waxyaabaha kale aan ku baran doono course-kan waxaa ka mid ah regular expressions, JavaScript patterns, async JavaScript, fetch API. sidoo kale waxaynu u tegi doonaa qeybaha advanced-ka oo waxaynu ku baran doonaa markaasi sida loo isticmaalo markaas back-end-ka inagoo markaasi isticmaalayna Node.js. muuqaalkan kuma soo koobi kara dabcan waxyaabaha aynu ku baran doono dhan, waxay ahaydun inaan markaasi introduction kaa siiyo waxyaabaha aynu ku baran doono. laakiin waxaan doonaya qodob muhiima inaan sheego. waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qofku wax ku barto waxaa ka mid ah dhisidda markaasi real world applications. waxaan markaasi focuska saari doonaa sidii aynu u dhisi lahayn projectyo markaasi fara badan, inagoo kaga bilaabi doona tusaale ahaan projectyo yaryar oo inagoo isticmaalna if iyo else statementska
iyo math operatorska comparison operatorska markaynu waxoogaa ka barano markaasi fundamentalska marka inagoo waxyaabaha yarar isticmaalayna waxaan dhisi doonaa sida muxuu ahaa age calculator kadibna waan sii socon doonaa ilaa aynu markaasi ugu dambeynta ka dhisi doono projectyo waaweyn sida inagoo dhisi doono markaasi e-commerce website iyo dukaamo markaasi aan u samayn doono website iyo markaas inagoo qaybta front endiga iyo qaybta back endigaba markaasi dhisi doona walowba course-kan aynan ku baran doonin HTML iyo CSS laakiin haddana waxaan isku dayi doonaa maadaama aynan ka maarmayn HTML iyo CSS inaynu muxuu ahaa iyagana waxoogaa ka yara barano laakiin focusku wuxuu ahaan doonaa markaasi JavaScript waxaan rajaynayaa markaasi inaad jeclaan doontid course-kan oo aad markaasi ka faa'iidi doontid haddii aad weli daawanaysid muuqaalkan waxay la tahay markaasi inaad xiiseynaysid barnaamijkan iyo muxuu ahaa iskuulkan markaasi aan furay iyo waxyaabaha markaasi laga heli karo aan u gudbo markaasi qaybta ugu dambeysa ee ah sida uu qofku markaasi isku diiwaan gelinayo ugu horeyn waxaad booqanaysaa markaasi website-ka academy-ga oo la yidhaahdo xirfadacademy.com ama www.xirfadacademy.com markaad booqatid waxa ugu hore kuu soo bixi doonaa waxa weeyaan markaasi page-kan halkan waxaad ka akhriyi kartaa markaas waxyaabaha markaasi ku saabsan academy-ga haddii aynu ku horeyno markaasi qaabka aad isku registraynaysid course-kan halkan ayaad tegi doontaa kadibna waxaad ku dhufan doontaa view course halkan waxaad ka akhriyi doontaa markaasi introduction yar oo ku saabsan course-ka sidoo kale halkan waxa aad ka arki kartaa waxyaabaha ku guda jira maadaama uu course-kan socon doono 3 bilood waxaan geliyay markaasi labada week ee ugu horeeya muxuu ahaa curriculum-ka aynu qaadanayno marka intan aad hadda arkaysaa waxay ka dhigantay markaasi labada week ee ugu horeeya waa haddii aad daawanaysid muuqaalkan markaasi waqtigan aan duubayo sababtoo ah hadhow toole curriculum-ku waxau noqon doonaa markaasi mid sii socda oo dhammaystirma 3 bilood kadibna waxau noqon doonaa markaasi curriculum dhammaystiran oo haddii uu ku seegay markaasi inaad nala bilaabatid dabcan muuqaaladu waxay ahaan doonaan qaar sidooda ugu jira xitaa haddii ay ku dhaafto qeyb ka mida markaas tutorialskani waxa aad markaasi heli kartaa casharadii oo sidoodii u duuban oo kugu save garaysan markaas dashboardkaaga halkan emailku waxa weeyaan waa halkaad iska diiwaan gelinaysid markaad isdiiwaan gelisid waxa aad tegi doontaa markaasi qeybta loginta halkaas ayaad markaasi ka geli doontaa tusaalahaan waxaa rabtaa inaad course-kan qaadatid waxa kuu furan markaasi 2 option qeyb markaasi waxa weeyaan haddaynu fee-ga ka hadalno maadaama uu soconayo 3 bilood bishiiba waxa weeyaan markaasi $20 marka waxaad samayn kartaa ama bilbil baad u bixin kartaa ama waxaad samayn kartaa hal mar markaasi ama one time payment oo ah markaasi $49 marka kolba qeybtii aad dooratid ama yani choice-ka fee-ga nooca dooratid adigay markaasi kugu xidhantay marka aad markaasi course-kan kasoo qaad waad isdiiwaan gelisay waxa uu ekaan doonaa markaasi sidan oo kale halkan qeybtan bidixda waxaa markaasi kugu taxmi doonaa casharada markaas aad dhiganaysid iyo siday markaasi u kala horhoreeyaan tusaalahaan haddaynu ku dhufano halkaa koobaad what's JavaScript waxaan arkanaa qeybtan midigta waxay noogu soo baxay markaasi casharadii casharadu waxay noqon doonaan markaasi qaar inta ugu badan videos laakiin qaar waxa aan gelin doonaa markaasi text ama qoraallo iyo sidoo kale linkiyada aynu u baahanay tusaalahaan inaynu isticmaalno I think intaasi markaasi inay ku filantay sida uu eeg yahay ama casharadu say u ekaanayaan intaanan iloobin haddaynu tagno markaasi qeybta ugu hooseysa halkan waxaad ka heli doontaa markaas codeka casharada aynu qaadano oo cashar kasta waxaan samayn doonaa codekiisa
ayaan markaasi ku upload garayn doonaa halkan. qaybtan ku xigtana waxaan arkaynaa in aan yaalaan ama waxaan dhigi doonaa markaasi bugaagta iyo waxyaabaha studying materialska ee aynu u baahanay. bugaagtu markaasi iyo studying materials waxay noqon doonaan kuwa markaasi free ah. haddii aan imika wax yar ka idhaahdo qaybta markaasi scholarshipka, haddii ay markaasi kugu adagtay feegu ama aanad awoodeyn, waxaad tegi doontaa markaasi website-ka, kadibna waxaad email u diri doontaa emailka halkan ka muuqda, kadib waxaad sugi doontaa markaasi jawaab inay kuu soo dhacdo haddii markaasi ilaahay idhaahdo. haddii aad u baahatid caawimaad, waxaad markaasi si directia email ugu diri kartaa emailada markaasi ku qoran website-ka academiga, ama waxa aad samayn kartaa online chatting oo aad halkaa markaasi ka dalban kartaa caawimaadda aad u baahantay. ugu dambeyn waxaan rajeynayaa markaasi muuqaalkan inaad ka heshay su-aalihii aad markaasi qabtay ee ku saabsanaa iskuulka markaasi xirfad academy. haddii ay jiraan markaasi su-aalo kale oo aad qabtid, iigu soo dir markaasi email ahaan, ama ku reeb qaybta muxuu ahaa commentka ee muuqaalkan. intaasaan kusoo gabagabeynayaa. tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono, waxaan kaga tegayaa nabaday.